No, no, daha no nadafa. No, no, daha no nadafa. nabar iyo naxdin no nadhaafa waa ciwaanka hees ay soo saareen kooxda caanka ah ee waayaha cusub. muuqaalka heestani waxa uu noqday kan ugu hadal haynta badan dhanka Soomaalida ee baraha bulshada. aragtida shacabku waa ay kala duwan yihiin. qaar shacabka ka tirsan waxa ay la dhaceen miraha heestan, kuwa kale si caro leh ayay ugu falceliyeen heestan. muuqaalka heestan waxaa la soo dhigay barta YouTube-ka ay ku leeyihiin kooxda waayaha cusub. dadyow badan ayaa daawaday muuqaalka heestan, balse 95,000 oo dislike ayaa loo diiwaan geliyay iyo in ka badan 20,000 oo like. waana heestii ugu horeysay oo Soomaali ay leedahay oo la soo dhigo barta YouTube-ka oo loo diiwaan geliyo 95,000 oo dislike. qaar kamida shacabka magaalada Kismaayo oo la hadlay TV-ga Dalsan ayaa ka falceliyay heestan ay soo saareen kooxda waayaha cusub, waxaana hadaladoodii kamid ahaa horta waa salaamatiin Dalsan. waxa weeye heestan baraha bulshada lagu waalay waxaa jirta horta hore saddex qalad bay leedahay. saddexda qalad ay leedahay waxa weeye horta heesta laxankeeda waa lagu degdegay oo laxan fiican ma laha. gebigeedba degdegay ka samaysan tahay afduub. laxankeeda waa lagu degdegay, waxaa kaloo lagu degdegay xataa miraha haddaad fiirsato miro nuxur lama saarna heesta, ma fahanta? Okay, waxaa lagu degdegay haddana habka ay wax u mucaaradeen waa qalad. oo maanta annaga mucaarad waana soo daashaday, wax laga sheego unbay Soomaali baratay. wixii oo dhan in la bedelaa la rabaa. wax walba jaaniskooda oo qaata wixii wanaagsan la taageero. haddii aadan taageerin ka aamus, inaad ka aamusto ayay ku qurux badan tahay, ma fahanta? marka heestan waxyaalaha aan lagu dhaliilayo waxaa ugu badan laxan ahaan. heesta waa iska waxaan jirin, laxan ahaan kama jirto. aad u mahadsantihiin. ugu horeyntii waan salaamayaa bahweynta Dalsan TV. magacaygu waa Maxamed Cabdinuur Afrax, waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. haddii aan ra'yi ahaan ka dhiibto ra'yigayga iyo sidaan u arko heestii cusbeed ee fanaaniintii waayaha cusub ay soo qaadeen ee ku aadaneed nabar iyo naxdin, hadduu alla yidhaahdo ka shakhsi ahaan aniga heestaas waxaan u arkaa weligii wuu fanaan heesi jiray. waayaha cusub rag hadda fanka soo galay ma ahan. waayaha cusub allaa weyn hees ay al-shabaab wax kaga sheegayaan, heeso badan oo ay guugaabaa oo dhanka dhallinyarada bay qaadeen. weligood dee felis iyo shiina dad waxay ahaayeen la yaqaanay oo fanka lagu yaqaanay, fanaaniin hadda soo gala ma ahayn. aniga heestaas waxaan u arkaa ka shakhsi ahaan, ka maxamed ahaan waxaan u arkaa inay tahay mid saxan. weligii wuu fanaan heesi jiray, ma ahan in si qaldan loo fiiriyo. fanaanku dawladii hadday jirto wuu dhaliili karaa, hadduu rabana waa uu taageeri karaa. maanta laguma haysto hadduu alla yidhaahdo fanaaniinta farmaajo u haysa laguma haysta. maxaad ugu haysteen? way taageeri karaan fanka, isagaa iskale, isagaa luuqdiisa iskale. ma ahan in sida qaldan loo fiiriyo. waxaan leeyahay dadka baraha bulshada ku buunbuuninaya dhahaya heestaas si qaldan bay tahay meel waaye, in aysan noqonin kuwa sida qaldan wax u fiiriya, ay noqdaan kuwa sida toosan wax u fiiriya. anigu ra'yi ahaanteeda waxaan leeyahay ma ahan arrintaasi mid qaldan, waa ayna saxan tahay. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan ka hadlayaa dhallinyaradii sida ba'an xilliyada badan oo qaxootiga ku soo dhexdhaqmay dalka Kenya, sida loo yaqaanaba la dhihi jiray fanaaniinta waayaha cusub. dowladnimada ma aysan soo arkin. dhallinyaradaasi waa gafeen nabad iyo nolol ama dowladda hadda dhisan ee taagan dalka Soomaaliya meelo badan ka taabteen. waxa ay ka taabteen wax qiimo badan oo hadda aan ka soo qaadi karno ma ahan. waxaa u malaysaa in laga caroon karo hadda ka hor fanaanka Maxamed Bike qaraxa Soomaaliya ka dhacay. Maxamed Bike oo ka caansan oo maanta nin legend ah baa Soomaaliya raaligelin ka bixiyay. marka dhalinyaradan sida ugu dhaqsiyaha badan haddii aysan raaligelin oga bixin in heestooda gudmata xataa ma dhici doonto. waxayna kala kulmi doonaan foolxumo fara badan. labada qof oo taageeraha shilli ay ku haysteenna maanta kala fakadeen insha Allah bismillaah alkariim. yacni heestan erayadeeda iyo codkeeda iyo laxankeeda kama heeso badan oo la sameeyay xilliyadan kama wadato. kuwa badan oo ka codka iyo midhaha iyo wax oo dhan ka wata baa soo jiray. inta cod aqlabiyada hesha taageeraha heshayna ama laaga heshana heesuhu meeyna helin.
kuweenka aan u sameeyay baa jiro horta waan helinta sababta waxa ugu wacan waxa weeyaan baashu waqti bay heshay waqtiga yay heshay dareenka dadka wixii ku jiray dadkana way fasilaysaa marka waxa weeyaan rabitaanka nabar yan laxdin inaan la doonaynin sheekada nabar yan laxdin doonimayna noona naafada intaas ummadda ka gadantay bal sidee u aragtaa heestan ay soo saareen waayaha cusub oo magaceedu yahay nabar iyo naxdin ma heesta ma wanaagsan tahay qaabka loo maray mise ma wanaagsan ma wanaagsan heestas horta heestas markaan dhageystay waa hees macnaha ii sheeg oo macnaha ii sheeg lagu caaynayo dawladda Soomaaliya waan ka soo jeedaa aniga shakhsi ahaantayda waka ma habooneed xilligan in heestan soo maya ma haboonin inay wax kale ay ka hadlaan wanaagsaneed laakiin oo Soomaaliya ay ka dhigaan nabad macnaha hees ay qaadaan laakiin waa arrin aad u xun dadka Soomaalida horta inay wax fahmaan aad bay u fiican tahay heesta la soo qaaday ay soo qaadeen fanaaniinta waayaha cusub ay soo qaadeen aad iyo aad baan u taageersanahay waayo dadka Soomaalida wax la fahansiinayaa macnaha nabar iyo naxdin heesta dadka Soomaalida waxaan sheegayaa inay heesta wax ka fahmaan kala dhacdaan ma garas marka heesta aad iyo aad bay haboonta waxay u haboonta dadka waxyaabo badan laga fahmi dadka ha dhigaysan heesta markay la dhigaysan bay dadka fahmayaan marka waxaan ilahaa aan heesta aad baan u taageersanahay marka laga yimaado falcelinta shacabka ay ka sameeyeen heestan bahda abwaaniinta iyo fanaaniinta Soomaaliyeed waxay su'aal ka keeneen miraha heestan sidoo kale jawaabo kala duwan ayay ka bixiyeen bahda abwaaniinta iyo fanaaniinta Soomaaliyeed محمد إبراهيم كرامة راديها إيه تي في dalsan magaalada Kismaayo